السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن صاحبيال سو دوادا kuna soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee Cizi Doctors kani waa wadnaha qofka bini'aadamka waxa gududan ee dhex socdaahina waa dhiigga qofka kaasi oo ka soo gala wadnaha laba dhinaca midig iyo waliba dhinaca bidix wadnaha qofka waxa loo qaybiyaa afar god afartaasi god labada sare waxa lagu magacaabaa atrium ama wadnaha qaybta sare waxa lagu magacaabaa atrium waxaana kala qaybiyaa line lagu magacaabo septum halka wadnaha qaybta hoosena loo yaqaano ventriculus oo iyaguna sidaas oo kale oo leen kala qaybiyo dhinaca midig ee wadnaha ee lagu magacaabo right atrium waa qaybta ugu sareysa wadnaha dhiig ayaa ka soo galaya wuxuuna ka imaadaa dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka waxaana dhiiggaasi keena laba xidid oo waaweyn oo loo yaqaano superior vena cava iyo inferior vena cava dhiiggaasi marka uu ka soo buuxsamo qaybta midig ee wadnaha ee sare waxaa furmaya carabka ka hooseeya oo lagu magacaabo tricuspid valve kadib marka uu furmo dhiiggu wuxuu u gudbayaa qaybta ka hooseyda oo lagu magacaabo right ventricle markii dhiiggu uu ka buuxsamana waxaa furmaya valve kale oo lagu magacaabo pulmonary valve kadibna dhiigga waxaa loo tuurayaa oo loo bambayn doonaa pulmonary arteries waxay dhiigga ka qaadayaan wadnaha waxayna geynayaan sambabada kadib markii sambabada la geeyo dhiiggii waxaa laga saarayaa carbon dioxide-kii oo ahayd hawadii wasaqaysnayd oo uu jirku soo saaray waxaana meesha looga soo darayaa hawo nadiif ah oo loo yaqaano oxygen markii oxygen-ka lagu soo daro sambabada waxaa dhiigga ka soo qaadaya laba xidid oo kale oo lagu magacaabo pulmonary veins marka ay soo qaadaan dhiigga fiican ee oxygen kale waxay wadnaha ka soo gelayaan dhinaca bidix oo lagu magacaabo left atrium dhinaca bidix ee kore markii ay ka soo galaan oo dhiiggu ka buuxsamo waxaa furmaya carabada ka hooseeya oo laba xabo laguna magacaabo mitral valve ama bicuspid valve carabyadaasi markay furmaan waxay dhiiggu u soo gudbinayaan qaybta ka hooseysa oo lagu magacaabo left ventricle-ku wuxuu dhiigga u tuurayaa dhinaca aortaha ama xididka weyn ee jirka dhiigga u qaybinaya balse ka hor waxaa furmaya valve loo yaqaano aortic valve aortana wuxuu u qaybi doonaa xididada kala duwan ee jirka kadibna waxaa loo qaadi doonaa jirka qaybihiisa kala duwan iyadoo safarro dheer ay sii mari doono xubin kasta oo jirka ka midana sidaas ayaa lagu gaarsiin doonaa dhiig nadiif ah oo oxygen leh markii oxygen-ka isticmaasho xubintu ayna gubto kuna soo saarato tamartay u baahnayd dib waxaa uga soo dhalan doonaa wasaq loo yaqaano carbon dioxide isla wasaqdaas ayaa la soo qaadi doonaa xididadu markay soo qaadaan isku soo dhiib dheer kadib waxaa la isugu keeni doonaa laba xidid waaweyn oo loo yaqaanay superior vena cava iyo inferior vena cava wareeggii aan hore u soo bilownay ayaana halkaas kasoo dib uga soo bilaaban doona oo waxa dhiigii dib loogu soo shubi doonaa right atrium kadib waxa loo gudbi doonaa right ventricle kadib waxa loo gudbi doonaa pulmonary artery kadib waxa la geey doonaa sambabada waxa soo qaadi doona pulmonary vein waxa la keeni doonaa left atrium waxa loo gudbi doonaa left ventricle waxa loo tuuri doonaa aorta sidaas ay hadana jirka markaa loo geyn doonaa aad ayaad ugu mahadsantahay la socoshada barnaamijkeena haddii aad wax ka faa'iiday waan kaaga mahadcelinayaa fadlan like-ta subscribe-ta iyo share-ta midoodna ha inaga hilmaamin